beri oo doorashadu ay dalka Mareykanka la gali doono isla markaana ay tahay doorashada ugu culus ee dunida ka dhacda sanadkanna xiise gaar ah doorashada dalka Mareykanka waxa loo arkaa in muhiimad khaas ah ay u leedahay habsami u socodka siyaasadda caalamka ee Mareykanku uu beri ugu dambeeyay ku madax doonaa ilaa hadeertana in laga dhigo lagu hawleeyahay waxa kale oo ay habeen doontaa oo ay si aad u xoogan ay u muuqataa in ay arintaasi ay marka ka dameysa ay keeni doonto wax loogu yeeray markaasi in ay yeelato ujiye aad weyn hadaba marka horeysa bal warka ugu dambeeya doorashada waxay sheegayaan in saacadii ugu dambeeyay dhinacyadu isku dayayaan qofka kale inuu meesha ka riixo waxa dhacay wax loo yaqaan markaasi in aan la seexan shantii maalmood ee ugu dambeeyay diyaaraduhuna waxay isku gudoomarayeen sida hilaaca ilbriqsi kasta waxa ay isku dayeen in ay qaataan oo ay ku guuleystaan hal cod waxaana la arkayay iyadoo sida muuqata qof walba uu isku dayayo in uu kumanaan kun oo qof uu isugu keeno magaalooyinka loo yaqaan Swing State-ka ayaa sida hilaaca ay diyaaraduhu isku hor iyo dabamarayeen Kamala Harris waxay xoog ka saartay gobolada ay ka mid ka tahay Michigan iyo Pennsylvania isla Trump isla goboladaas ay xoog ka saaray waxa goboladaas lagu sheegay waa labada gobol ee hadeerto ay u egtay in ay siyaasaddu ay ku soo ururtay gobolka Iowa ayaa ka mid ah goboladii ugu dambeeyay la isku dilay ee dhinaca markaasi warwareyntu ay sheegayso in la kala xoogayo saacadii ugu dambeeyay Trump ayaa la leeyahay saacadii ugu dambeeyay waa laga qaaday gobolkaasi hase yeeshee wali rajada laga qabo Michigan in ay ku kala guuleystaan ku kala adkaadaan ayaa qir iyo qar muslimiinta ayaa codkoodu kala go'ay isla markaana muuqata inay ku kala qaybsan qadiyada qaarkood waxay leeyihiin Trump waa kudka gur oo qanjo u gur kuwa kale waxay leeyihiin hadeerto qofka gacanta dhiigga kula jira ee kontonka kun ee qof dilay waa Kamala Harris sidaa daraadeedna anagu qof waxa uu sameeyay doono aan ka saynin kan waxa jooga sameeyay ku door sameeyno sidoo kale Trump waxa uu sheegay in markii ugu horeysay bikac muujinaya inuu asaguna siyaasadda dimuqraadiga ay ku aadan kala qaadista labada xabad joojinood uu ka shaqeynayo taasoo iyaduna caro hor la keentay isla markaana hubantilaan aad xoogan dadka qaarkood ku tilmaameen saacadii ugu dambeeyay doorashada waxay u egtay in qofka kale uu doonayo in uu dhibaateeyo iyadoo qofka kale uu ku dhibaateenayo hadallada deelqaafka ah ee la isdhaafsanayo 75 milyan ku dhawaad 80 milyan oo Mareykan ayaa durba goorsi codkooda dhiibtay kuwaas oo codkooda sababta ay u dhiibteen ay tahay wax loo yaqaan codaynta hordhaca tani waxay u egtay inay muujinayso in dalka Mareykanka doorashadana ay tahay markii ugu horeysay ee ayaan doorashada la gaarin doorashada codaynta hordhaca ay dadkii ugu badnaa codeeyeen qaar ka mid ah dadka ka soo warramaya warbaahinta gaar ahaan tan Mareykanka ayaa ku tilmaamay in doorashadu ay tahay high stake oo la jeedaan inay tahay tii ugu sareysay isla markaana qiimo sare u leh gaar ahaan dadka cadaanka bulshada cadaanka ayaa hadaba loo arkaa in iyagu doorashada ay siiyeen sanadkan inkasta oo saameynta ugu badan ee dhinaca kala goynta arrinta meesha aadayso aysan iyagu lahayn cadaanku waxa ay fogeeyaan arrimaha isla markaana waxa ay qof walba gaarsiiyaan meesha uu heli karayo laakiinse madaxweyne cid ka badhiga taas macnaheedu waxa weeye inta badan codka waxa go'aamiya dadka tirada yar ee laga tirada badan yahay gaar ahaan kuwa ku dhaqan 12 gobol si gaar ahaan 6 gobol ee ugu sii saameynta badan dalka Mareykanka kuwaasi waa dadka madowga iyo dadka kale ee soo raaca ee loo yaqaan wixii kala leh waxayna ka dhigan tahay in siyaasadda hatan ay marba ka dambeysay sii darsanayso u egtahay inay ugu adkayd hadaba bal intayna qodobka ka dhaqaaqin waa maxay sababta ay saameynta aadka u badan u leeyihiin dadka madowga sababta ay saameynta aadka ugu badan dadka madowga u leeyihiin wax kale maaha waxa ugu badan ay saameyntaasi u leeyihiin ama ay u xoojiyaan waa hal shay waana ayaga oo ku dhaqan inta badan gobolada muhiim goboladaas muhiimka ay ku dhaqan yihiin waxay keenaan inta ay kraankooda in codadkoodu ay noqdaan kuwa taabagala isla markaana urursan hal meel la wada aado taasina waxay keentaa in natiijada gobolka dhan rogaan gobolada Wisconsin gobolka Pennsylvania iyo gobolka loo yaqaano markaasi Michigan gobolada Arizona gobolka Georgia iyo gobolada kale ee ka mid tahay markaasi North Carolina ayaa dadka madowga iyo dadka muslimiinta iyo dadka carabta ay ku leeyihiin saameyn aad u xoogan tusaalahan gobolka Wisconsin oo ka mid ah gobolada sida weyn la isugu dilay saacadihii ugu dambeeyay waxa la amsay ilaa 50 kun oo cod ayaa yaala 50 kun ee cod ee muhiimka ah ee dadka waxa ka hadlaya markaa codka gobolka ka hadlayo waxa ka hadlaya codka dadka muslimiinta waxaana loo arkaa kuwa ugu muhiimsan ee maanta go'aan gaari kara halka gobolkaasi ay sheegayaan wararka ugu dambeeyay ee ka imaanaya in ay codadka dadku inta badan aysan u kala qaybsanaysan Michigan oo kale tusaalahan wararka qaarkood waxay sheegayaan in laga yaabo in codadka gobolka Wisconsin ay aadaan haweenada loo yaqaan Kamala Harris waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in muslimiinta halkaas ku dhaqan iyagu ay dan leeyihiin wayna eegi doonaa qof walba waxyaalaha uu ku kala fiican yahay iyo waxyaalaha danaha ah ee ay kala eeganayaan dhinacyadu oo ah kuwa aan sida la moodayo us kala sahlanayn dadka qaarkoodna ay ku kala qiimeynayaan qof walba waxa uu dareemayo maanta qaar badan ayaan haba yaraatay aan iyagu kama hadlaynin qadiyadka weyn ee caalamka ka soconaya waxba ka ogeyn hadaba marka laga hadlayo Wisconsin wararku waxay sheegayaan in ay qirti ugu dambeysay dhinaca codka walow la isku yahay haddana hadeerto ay laga yaabo gobolka dilaamo oo u dilaamo xagga haweeneyda
waxaana taas ka dhigan tahay in kontonka kun ee cod ay kala saari doonaan gobolka Georgia wuxuu ka mid yahay gobolada ugu muhiimsan ee codayntooda ay go'aanka ka gaadhaan dadka loo yaqaan madowga gobolka Georgia ku dhaqanay waxa ay sameeyaan oo ay aad iyo aad uga shaqeeyaan inta badan danahooda khaaska ah gaar ahaan kuwooda ay kor ugu qaadmayaan noloshooda waxaana loo arkaa ayaguna inay gobol aad iyo aad muhiim u yihiin inta badan codka gobolka waxa go'aamiya dadka madowga meesha aadaan ayayna u badanta wayna cadday Kamala Harris inaysan u kala hadhaynin waayo ayagu si kastaba ha ahaatee oo Trump hay sugu dayo inuu gabadhaasi uu cileeyo cid ay ka dhalatay iyo nasabkeeda saxda ah oo aan cadayn ayuu yiri dhowr jeer ku eedeeyay oo ka wado hindina ma tiid madowna ma tiid yaata taasoo ahayd arrin aad iyo aad u weyn laakiin waxa hubaala inay ka soo jeedo qoys caan ku ah u dhaqdhaqaaqa madownimada gaar ahaan aabaheed oo isagu aad u nacab dadka cadaanka ah laguna yaqaan afkaar aad u diidan buugta uu qoray iyo gabi ahaanba bunuugta uu kasoo shaqeeyay maadaama nin dhaqaaliyahan uu ahaa inuu afkaar cadcad ka lahaa waxa uu u arkay in dhowr jeer la sameeyo wareegi doona aabaheed saameynta uu ku leeyahay iyo waliba sida uu aadka ugu yar tahay in saameyntaas isticmaasho la ajliga cilaaqaadkooda aan wanaagsaneyn hase yeeshee si kastoo noqotaba doorashada dalka Mareykanka waxay u egtahay tii ugu kulleed ugu markaasi saameynta badneed uguna markaasi xasarada kululeyd inay soconayso waxa laga hadlayaa waxa weeye waa kala grubsiga codadka dhinacyadu waxay muujiyeen in ay gabi ahaan badalka inta meel iska dhigeen ay kaliya go'aansadeen inta ay sariirta ku jiraan inaysan ka badnaanin saacad ama labo waxaana u arkaan tani tii aad iyo aad muhiim ah waa fariimihii ugu dambeeyay ee gobolka waxa ku xeeran hadaba doorashadan siyaasado waaweyn oo dunida faragelino shisheeye ayaa la sheegaya dalal shisheeye ayaa la leeyahay waxay dulba soo gaadheen dhinaca markaasi warbaahinta bulshada sirdoonka dalka Mareykanka hay'adda FBI da dalka Mareykanka ayaa dulba waxay qabatay warar iyo xogo sheegaya in ay lagu guuleystay ka hortagga warar faafay muuqaalo la sameeyay oo la yaab leh ayaa waxay muujinayaan inay ahaayeen khatartii ugu weyneed dulba Mareykanka lagu soo gamo iyadoo la sheegayo in qaar kamid ah codad la qabtay iyo wali waxa la yiri dad lagu qabtay ayaga oo codayn tahriiminaya sanaadiiq sharci darro aan wada si loogu codeeyo in la ogaaday in ay ka tirsan yihiin ayaa la yiri markii ugu horeysay madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda ay Kamala Harris ninkeeda arintaasi waxa uu ahaa war been oo faafay kaasoo si aad u xooggan baraha bulshada la soo dhaxmaray waxa la aaminsan yahay in koox farta ka xiran oo Raashiyaan ay ka shaqeysay muuqaal la abaabulay kaasoo si la yaab leh isugu dabariday muujinayana hanaan loogu tilmaamay in haweeneyda ninkeedaasi uu qorshaystay qorshe aad iyo aad u xun oo ah inuu coday u xado si uu markaasi ugu diyaariyo gobolada qaarkood meelo muhiim ah gaar ahaan gobolada Pennsylvania gobolka Washington iyo kuwa kale tani waxay ka dhalatay iyadoo gobolka Washington dhawaan ee rabshado ka dhaceen ee caasimadiisa caanka ka tahay Seattle Washington ee Soomaalidu ay ku badan tahay waxayna wararku sheegayaan in arrintaasi ay dhalisay khilaaf iyo khatar aad u weyn arrintaasi waxay keentay in si degdeg ah hay'adaha warwareynta dalka Mareykanka gaar ahaan hay'adda baarista dambiyada gudaha ee Mareykanka ay degdeg u baadho taasoo markaa ka dambaysa keenaysa inay baaritaanka ay sameeyeen ay tahay inay soo saareen in arrintaasi ay haba yaraatee aysan ahayn ayaa la yiri mid runa FBI da ayaa si degdeg ah baaritaan u sameysay FBI da ayaa isku dayday inay dadka Mareykanka dejiso kadib markii durba ay dadka cadaanka ay kaceen khatartaasna waxay keentay in amni darro aad u weyn ay abuuri karaan waxa shisheeye iyo basaasiin shisheeye oo dalka Mareykanka amnigiisa khalkhal aad u xooggan ku haya kuwaas oo aaminsan inay yihiin ruush walow ay dhinaca kalena ay dawladda Mareykanka ay sheegtay in wadamada iskaashatooyinka sharka ay ugu yeedheen oo ay ku jirto iyadoo Iran iyo Waqooyiga Korea sidoo kalena ay qayb ka yihiin Shiinaha iyo Ruushka oo dhawaan ay ku tilmaantay in cadawgooda koobaad yihiin ayaguna ay qayb ka ahaayeen waxaana wararku ay xaqiijiyeen in dhibaatooyinka halkaasi ka dhacay ay yihiin in markii ugu horeysay been abuurku uu keeni karayay khatar aad u weyn hay'adda FBI du haba yaraatee waxa ay beeninaysaa inaysan dhicin wax istamarin sanadiiqda la sheegay in ay yihiin kuwa been abuur FBI du waxay markaa hoos ka xariiqaysaa sida ugu haboon ee arrintan lagu hortagi karo inay tahay dadku inay markaasi iswacyi galiyaan iyo in ay wararka ka qaataan laamaha saxda FBI da ayaa u taagan difaacista iyo ka hortagga dhib kasta oo ku yimaada kolka ay noqoto joojinta arrimaha noocan oo kala sida daraadeedna ilaa iyo hadeerto ma hayno xogta cadeynaysa in uu dhacay wax istamarin noocaas oo kala ay FBI ku tiqtiqsatay hay'adda FBI ayaa markale ka digtay taasi inay joojiso sida muuqata madaxweynaha dalka Mareykanka hore waxa uu u ekaa in saacadii ugu dambeeyay dhanka kale uu sameeyay wax loo arki karay madaxweyne dhac booqashadiisu waxay ahayd kuwa aad u daran hadaladiisu waxay ahayd kuwa gaban waxayna ahaayeen kuwa aad u kooban Pennsylvania ayuu ku laba raadliyay North Carolina ayuu ku noqnoqday Georgia gacanta kama saarin isla markaana wuxuu ku tilmaamay in ay tahay doorashada dalka Mareykanka nolol iyo geeri mid u dhaxaysa wuxuu
ku tilmaamay in xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka uu baabiyay waxa uu sheegay in gabi ahaan dhaqaalihii wadanka dhulka galay wuxuu ku tilmaamay in adduunku qarka u saaran yahay dagaal aad iyo aad u xooggan wuxuu ku safeeyay inay yihiin koox is urursatay oo doonaysa inay Mareykan burburiyaan waxa uu sheegay wadanka in laga qaaday dadkii Mareykanka lahaa waxa uu sheegay in la curruqeeyay noloshana dadkii ay ku adkaatay waxa uu ka digay in malaayiinta qof ee soo dumay ee wadanka yimid ay yihiin duulaan waxa uu sheegay in dalka Mareykanka uu u baahan yahay sifayn waxa uu ka digay in dhaqaalaha dalka Mareykanka uu ku jiro wuxuu ugu yeeray dhimashadii ugu dambeysay isla markaana uu saaran yahay qaybta ICU uu ku jiro oo leeyahay waxa uu hadirta ku jira qaybta xaaladda culus ee qofka markaas la leeyahay waa nafka dhowris la geeyo waxa uu sheegay hadii aan taaliga badbaadin in aysan gabi ahaanba uusan dalka Mareykanka badbaadi kareyn sida kaliya wuxuu ku tilmaamay hal dooqna wuxuu sheegay inuu isaga yahay doorashada waxa uu sheegay inaysan ahayn wax ay dadku ay kala dooran karaan hase yeeshee taasi waxa beeninaysa Kamala Harris waxay ku tilmaantay inuu yahay kala qaybiye waxay sheegtay inuu yahay nin caybka ka shaqeeya waxay ku sifaysay nin naftiisa kaliya ka fakara waxay tiri dadka kale kama fakaro uma roona dadka kale waa nin isaga kaliya iska fakara waa nin kaliya isaga shaqaysta waa nin jecel lacagta waa nin caabuda iyada waa nin sidoo kale waxay tiri isla weyn waa nin waxay ku tilmaantay aan dadka Mareykanka u arag inay wadankooda leeyihiin waxay ku tilmaantay in uusan bulshooyinka qaarkood dan iyo helatoona kala hayn waxay sheegtay in hadii uu Trump kala yimaado in Mareykanka uu ku dhacayo god waxay ku tilmaantay hadii Mareykanka god ku dhacana martaba in laga saari kareyn waxay ku eedeysay in dhamaanba wixii dhibaato ahaa ee dhacayay sanadihii ugu dambeeyay oo dhan isagu waxay ugu yeedhay dhaxalkii ay ka dhaxleen 4 sano waxaanu ka dhaxalay waxay ahayd ay tii dhaqaalo hoosta ka belalay isla markaana nagu dumi gaaray hase yeeshee aanu badbaadinay waxay sheegtay hadii aysan iyaga hayn maamulka Joe Biden oo iyadu ay kaalmeenaysay in aysan dalku aysan ka badbaadin saxariir dhaqaalo aad u weyn Great Depression laakiin ay ka badbaadiyeen taasi waxay ku tilmaantay kala qaybinada hadalada caadifadiisa iyo inuusan Mareykanka u arag in la wada leeyahay in ay tahay arinta hubanti la'aanta keeni karaysa waxay sheegtay in ay masaka tahay arrimaha qaarkood oo ay kamid tahay dhimista in dadka soo galootiga wadanka laga dhigo iyo in la soo saaro shuruuc caadi ah oo adag oo wadanka lagu markaasi lagu yareenayo xuduudaha dhinaca koonfureed ee wadanka hase yeeshee waxay diiday in haba yaraatee qorshayaasha noocan oo kale ah ay yihiin ay tiri kuwa u ah priority-ga koobaad ay jiraan waxyaalo aad u badan oo wadanka uga sii muhiimsan oo ay kamid tahay dhaqaalaha wadanka in la beeqaamiyo oo ay kamid tahay arrimaha qaarkood in kor loo qaado oo ay kamid tahay in dadka Mareykanka ah nolol fiican loo helo oo ay kamid tahay in qoysaska la taageero oo ay kamid tahay dhowr arrimood oo kale oo ay ballan qaaday waxyaalaha ay labada dhinac kala ballan qaadeen qaybta saddexaad ay ku maqli doontaan laakiin aan dib ugu noqdo hadaba wararka halista ah ee dalka laga sheegay Trump waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay jiri karto in doorashada la boobo doorashada in la boobo waa suuragal waxaana uu sheegay in gabi ahaanba ay jirto mar kale in sharafta doorashada ama wax loo yaqaan isku haleynta doorashada laga qabo aysan ahayn mid cad waxa uu ka digay in gabi ahaanba arrintan ay noqon karayso wax uu ugu yeeray qaabka ay u nadaamsan yihiin xubnaha ayuu yiri hoolan ee dhibaatada badan ee loo yaqaan ayuu dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga ayuu ku eedeeyay gabi ahaanba in aysan ahayn ayuu yiri dad saxan marka laga hadlayo in ay wanaag ka shaqeeyaan waxa yiri shaki ayaan ka qabaa in ay sii ballaarato xatooyada iyo khiyaanada ayay ku dheereeyaan 2024 electionka waxay sameey karaan wixii 2020 dhacay waxa uu si dad arrintaas u sheegay hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in gabi ahaanba ay tahay arrintaasi been waxayna ku tilmaameen in gabi ahaanba arrintaasi ay sahayn run waxayna sheegeen in dalka Mareykanka la wada leeyahay sida daraadeedna systemka dalka doorashada maamula uu yahay mid cad oo aad iyo aad u fiican oo muujinaya mar walba marka dambaysa in la isku haleey karo qof walba waa inuu ku kalsoonaado sanduuqa codka natiijada halkaas ku dhacda ee dadku ku ridaana wixii ka soo naasacadaada ee ka soo baxa ayaa waxa ay noo tahay anaga naruuro taas ayaa anaga nafno ah taas ayaana anaga aan ku xisaabtana waa isla taas wadanka ka shaqeynaysa hase yeeshee arrintan ayaa ugu tilmaamay in cabsideeda keeni karayso waayo in qof mas'uul ah xilli xasaasi ah oo hadana oo kala gamo way adag tahay in ay laga badbaado mararka qaarkood waxaana u egtahay baa leeyahay marka dambaysa in arrintan ay khatar aad u weyn ay keeni karayso oo ay sii dheertay faragelinta dalalka shisheeye sidaad ku maqliseen wararkii hore dalal shisheeye ayaa faragelin aad u xoogan doorashada ku haya kuwaas oo sida muuqata iyaguna la sheegayo in ay sii deynayaan warar been abuur ah oo baraha bulshada ah kuwaas oo mararka qaarkood qaarna laga saarayo qaar kalena laga daba tagayo kuwa kalena ay hay'adihii waaweyn dalka Mareykanku ay ka daba qaylinayaan dhawaaqana ay ka wadaan in ay ku muujiyaan arrintaas inaysan run ahayn warartu run maaha ay aflabadi ka yeedheen FBI da dalka Mareykanka ruxitaanka aadka u weyn siyaasadda ee dalka Mareykanka ka taagan ayaa waxa la sheegay in sidoo kale keeni karto khataro waaweyn oo ah isweydiinta
doorashada dalka Mareykanka sidee ayay dadku uga gudbi doonaan iyo dawladdu doorashooyinka dalka Mareykanka waa xasaasi waana wararka ugu xasaasisan baqdinta ugu badan waxa weeye ma iska horimaad gacanka hadal inuu dhici karo waa suuragal sababtoo ah hadallada aadka u kulkulul ee la isweydaarsanaayo qadafyada iyo dhinacyadu ay kala sheeganayaan dhibaabaha iyo waliba kala tabashooyinka Trump oo asagu dirbo tabasho muujiyay iyo sidoo kale iyadoo ay hadallada qaarkood ay kulul yihiin inkastoo oo warbaahinta dalka Mareykanka isku dayday inay isku soo dhaweyso dhinacyada horaantii hore ee doorashada iyo ololaha qaabka loo sameeyay ee iyagu codsadeen inay qaabeeyaan oo markaas loo ogolaaday isla markaana si qaabeyshan ay u sameeyeen hase yeeshee tan iyo intii ay dhacday doodii dambe ee dhaxmartay Trump iyo haweeneydii la oran jiray Kamala Harris waxay arintu u ekeed marka ka dambaysa in ay u sii socoto dhab aad iyo aad foolxun qalafsan oo liita waxaana lagu tilmaamay in ay arintu faraha ka haaday kadib markii dhinacyadu is eedeeyay bal qodobada ugu dambeeya gobolka Iowa hadeerto tirooyinkii ugu dambeeyay waxa la sheegaya in ay Trump ay kaga timid oo uusan jeclaysan gobolka Iowa waxa warku sheegaya in hadeerto haweeneydii Kamala Harris ay daqiiqadii ugu dambeeyay ay soo xilmaysay markaas indhaynta dhagadegaynta iyo warwareynta ku aadan arrimaha doorashooyinka 3 point ku hogaaminayso taasoo ka dhigan in markaasi xisbiga jamhuurigu gobol uu laba jeer isku xigta ku guuleystay 2016 labadaba iyagu cod ka heleen hadeerta inay muujinayso isla markaana ay dirayso wax loo yaqaan the shock waves taasoo ah in aad iyo aad laga yaabay dadka qaarkood waxay ku tilmaameen tan in ay tahay shock waves markaasi uu dirsamay ama loo diray hawada sare ee orbitka ee uu saarnaa Donald Trump dhinaca kalena Michigan waxa ka dhacay wax loo yaqaan markaasi ishaysasho aad iyo aad u weyn haweeneyda loo yaqaan markaasi Kamala Harris waxa ay guri u booqan iyo maqaaxi meelaha dadka madowga ay joogaan waxay ugu baaqaysaa codayntu inaysan ahayn mid qofku dooq weyn leeyahay waxay ku tilmaantay inay tahay sidii waajibaad oo kale waxayna sheegtay in qof walba waajibaadkiisa guto muslimiinta carabta ayaa la sheegay iyaguna inay saacadii ugu dambeeyay oo dhan ay si aad ugu kala duwanaayeen qadiyadka qaarkood dadka qaarkood waxay ku tilmaameen in kala duwanaanshaha aragtida ee dadka muslimiinta ay keentay masiibo aad u weyn oo ah inay go'aan aad xoogan u qaataan magaalada Dearborn waa magaalooyinka ugu waaweyn waxa dadka halkaasi ka hadlaya waxa ay sheegayaan inay arinta ku wareereen qaarkood waxa la sheegay in kala qaybsanaantoodu ay laba arrimood ay khusayso midu waa labadan qof bay ku kala qaybsan yihiin waa dadka iyagu gabi ahaanba ku kala qaybsamay labada qof waxay leeyihiin kabaan Norron iyo kabaan Norron labadaas waa laba kooxood oo qolan waxay leedahay Trump waa ka dar oo dibidal oo marka ay timaado qadiyadka muslimiinta iyo sidoo kale marka ay timaado tan Falastiin waa ka dar oo dibidal waxay ku leeyihiin waa ku ka guur qanjo u guur sida daraadeed tan baa lagu qaylqayli karaa oo warbaahinta ogol oo la maagi karaa oo la hadli karaa taas ayay ku doodayaan sida daraadeed kale hadii la codeynayo kuwan wax laga xaqxaga karo dadkeena qayb ku jiraan oo xilal iyo wax ka haystaan oo ku cawlay karno kuwan aynu dooranno hadalka halkaas ay lagu soo ururi karaa qolada kalena waxa ay leedahay maya haweeneydin waa dhigic iyadoo maamulkeediba 50,000 oo qof ay dhigta dhiig u dareen hubka iyo saanadana way direen hadalkooduna wuu cad yahay mowqifkoodu waynu aragnay natiijadiina waynu haynaa dhibaabihina waa aragtaan waxa ka dhacay Gaza iyo waxa ka dhacay Lubnaan nina kaba qarsoona ciiduna hadeerto arintaasi ma oran karto qofka idilay midada igula dhax jira ayaan maalin uu naro ka helaya taas waxay leeyihiin waa aqidar sida daraadeed ka waantooba oo yaan loo codeyn ee Trump loo codeeyo sababtana Trump waxay ku leeyihiin hatta hadii uu Israel taageero waa pro peace bay ku leeyihiin wasi hadalka u dhigay waxayna ku leeyihiin isaga oo baa nabad uga dhow kuwan oo ay macnaheedu tahay kol uu nabad ugu soo marmarsoodo oo uu yiraahdo anigu shaqo iyo shaqo toolid ku mari lacagna ku bixi maayo dagaal hase yeeshee waxaad falasan fala oo ay og yihiin markaasna inaysan Israel waxa fali karaynin halkaas halaga duuro oo Trump loo coday hadda waxa jira qolo saddexaad qoladaas waxay ku leeyihiin waan jaha wareersan waxaan ku jaha wareeray siyaasadda Mareykanka waxaanu gara weynay meel laga jiro dhinacan aadnaanu ka salaana nooma cadda taladayadu waa nagu ciirsanta wax walba way nagu xun yihiin mas'uuliyad weyn baan saaran sida daraadeed waxaan ku wareersanahay waxaanu yeeli lahayn qaarkoodna marka waxay keentay in ay doorashada ka baxaan oo ay codaynta iska daayaan kuwa kale waxay sameeyeen wali inay ka fakarayaan oo saacadaha kooban ee doorashada ka haray ay leeyihiin bal go'aan si uun ha u dhaco isoo doon ha noqdo baanu ka gaari doonaa arintaasi sidaas ayaduna waa arin kale carabtu waa community aad iyo aad u badan marka laga hadlayo gobolka Michigan laftiisa marka laga hadlayana waa gobol aad iyo aad u muhiim ah oo very strategic u ah doorashada iyo qofka uu dooranayo sidoo kale waa arin aad iyo aad u weyn oo marka dambaysa sii socota waxa dadka qaarkood ku tilmaameen hatta hadii dadka qaarkood ay aadaan xisbiga greenka loo yaqaano oo ay u codeeyaan waxay ka dhigan tahay in ay dhabar jabiyeen xisbiga dimuqraadiga hadii ay ahaanba diidaan inay codeeyaan oo ay codeey waayaan taana waxay dhabar jab ku tahay xisbiga dimuqraadiga waayo xisbiga dimuqraadigu mar walba waa ka luminaya dadka loo yaqaano dadka laga tirada badan yahay ee dalka Mareykanka haday codeey waayaan dadkaasi oo haba yaraatee ay codeey waayaan waxa kor u kacaysa ama kor u soo qaadmaya
codaynta iyo awoodda ismuujinta ee dadka cadaanka ah waayo dadka cadaanka ah markaas si guud laga hadlo ee la qiyaaso cadaanku uu u badan yahay Trump marka hadii cadaan sooca maanta halka la dhigo oo la yiraahdo ku kala baxa dadka kale oo dhan madowgana banaanka loo saaraya dadka kale color kale the people of color banaanka loo saaraya waxa leeyahay doorashada xitaa la isku tunturomay يعني حتى waxay noqonaysaa wax loo yaqaan the landslide election bay noqonaysaa marka waxa doorasho la isku awood sheegto ayay noqonaysaa sidaa daraadeed dadka cadaanka qaybta soo hadhay waa inay xoojin ka helaan kuwan aan idin sheegayo sidaa daraadeed haday dadkan coday waayaan iska bay yiraahdaan ba coday meeyno labadiina idin kala coday meeyno ka rax galimiin Trump xataa taas hadda ugu jirta Trump xataa taas hadda ugu jirta saas ku soo baxaya waayo marka codaynta dadka si ay hoos u dhacdo waxa kor u kacaya awoodda dadka cadaanka ee siinaya codka Trump isla markaana tiradii markii ay xaggan wax ka maqayeen saan ahaan doorashadii ugu dambeysay ee Joe Biden ee gobolka Michigan uu ku guuleystay 145,000 oo cod ayuu helay 145,000 ee cod ayuu helayna dadka waxyaalaha laga yaabo codsooyinka noqotay ayuu ku hogaamiyay gobolka 150,000 ayaa muslimiinta ka codaysa gobolkaasi waxaana la aaminsan yahay sida dhaytada dadkii eegay akhriyay ay sheegayaan in 145,000 la oran karo 100% muslimiin bay ahaayeen ee codka siiyay Joe Biden sidaa daraadeed waxa leeyahay hadda 100% waa la hubaa ugu yaraan 150 dadkaasi inuu waayi doono ama ha uu waayo Trump ha aad ama ha uu waayo coday waaye 50% so that 50% reduction baa imaanaya waxa imaanaya markaasi 50 kale ee soo haray 50 kale soo harayna way kala qaybsan karaan ayaa la leeyahay sidaa daraadeed halkaasi waxa ka imaan doona wax loo yaqaano dhibaato iyo dhibaxo aad iyo aad u weyn oo ku dhici doonta kuna soo socota xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka hadii xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka saa dhulka lagu jiido oo arrintaasi ay dhacdo oo gobolka Michigan uu dhumiyo sidoo kalena uu dhumiyo Georgia ama uu lumiyo gobolka North Carolina iyo waliba sidoo kale Pennsylvania inta haduu lumiyo oo lagu kala hadafay Florida iyo Ohio waxa leeyahay already hadda xagga bay soo mareen bal leeyahay oo waxa leeyahay iyagu waaba dadka qarkood waxay leeyihiin Florida iyo Ohio no more lama oran karo waa swing states lama dhihi karo waa gobollo isjallada lama dhihi karo waxa la dhihi karaa waa gobollo jamhuuriyoobay ama republican noqday dadka qarkood ku tilmaamayaan yani waxaan ka hadlayaa marka laga hadlayo doorashada madaxtinimada Sherrod Brown oo gobolka ka ahaa in badan senator oo xisbiga dimuqraadiga xitaa qiil aad u weyn ku jira wali doorashada dalka Mareykanka iyana ku soo qaadana wararkeena ugu dambeeyay sida muuqatana doorashada dalka Mareykanka waa mid ugu qaraareed ee taariikhda dhacda doorashada dalka Mareykanka waxay u egtahay mid marmar ka dameysa adkaadasa oo aad iyo aad u si qaraaranaysa waxaana lagu tilmaamay in doorashadani waxyaalaha adkeenaya ay kamid tahay waxyaalaha ku xeeran maxaa hadba ku xeeran waxa ugu badan ee ku xeeran waa caalamkii oo markaasi si aad iyo aad u weyn uga dhursugaya waxa dhici kara caalamkii oo nabadiisii iyo dabcan dhibaatooyinkii aadka u waaweynaa ee ka dhashay weeraradii Mareykanka uu taageeray ee ka dhacay bariga dhexe iyo ka Ukraine ka soconaya intuba ay keeneen hubanti la'aan iyo in la isweydiiyo war xagee loo socdaa war xagee la aadaya war xagee lagu dameey karaa war maxaa khaldan war maxaa dhacay kara war sidee arrintu tahay iyo waliba maxaa adduunka looga badbaadi karay yahay dagaalka sokeeyo oo aad iyo aad weyn maxayse u tahay in loo eegto masiibo inta leeg oo soo jeejeeray waa waxyaalaha ugu waaweyn ee marmarka dambaysa laga hadlayo ayla iyo hadeerto doorashada waad ogtihiin oo waa maalinta bari doorashadii hadii maalinta bari ay tahay bal ishqiyaasak adiga waxa dhici kara ayadoo oo dhinacyadu isku jilba murxaan hadaba waxa cad ayaa leeyahay in dunida oo dhan ay isha ku hayso wadamada aadka sida weyn isha ugu haya waxay u kala daran yihiin sida tan waxa kow ka ah Israa'iil waxa laba ka ah Ukraine waa labada markaasi aan la'aanta noolaa karin ma maqashay iyadoo la isku raado dadka jecel la'aanta ma noolaa karo la'aanta ma noolaa kara taas waa qodob labada kale ee iyaguna aad ugu sii haya waxa kamid ah Iran waxa kamid ah Shiinaha waxa kamid ah wadanka Ruushka saddexda dal ayaguna waa u muhiim iyo waqooyiga Korea waayo colaad iyo nabad waxay la aadi lahaayeen Mareykanka ayay iyaguna halkaasi ay ka dhusugayaan taa waxa sii dheer dadka reer Falastiin ee ayagu aan wax wanaagsan ka filaynin Washington inay uga yimaadaan oo ayaguna bal eegi doona balse yeelaan labadan qof kii doona soo baxay meesha ay arintoodu ay ku dambayso ama ay ku qayooto kuna tilmaamaya marba ka dambaysa inaysan ka saynin ama si fiican aysan garanaynin gabi ahaanba arrintan meesha ay biyo dhiga doonto oo aadi doonto hase yeeshee doorashadu si kastaba ha noqotee wararka ugu dambeeya waa ijiid iyo aan ku jiido arrintu waxay u egtahay mid aad iyo aad u sii darsanaysa waxay u egtahay in ay tahay doorasho la isku dhigan yahay doorasho lagu murmi karo halisteeda leh waxay u egtahay sidoo kale doorasho ay dhinac socdaan dacaayado inkastoo dawladda Mareykanku ay aad isugu dayayso inay xakamayso oo xayirto oo yarayso dhammaanba saameynta aadka u xoogan ee doorashadu ay ku yeelan karto dadka ayna doonayso in ay ilaahay xadsidoo kalena ay xadido dhibaatooyinka ka dhalan kara ee buuqa haddana si kastaba ha noqotee doorashadu waxay u dhacaysaa laba qof aad waday dadka Mareykanka cadaanka ah
waxaa la aaminsan yahay codkooda inuu aadsan yahay xagga ninkan cadaanka gabadha lila Kamala Harris iyo aabaheed waxay leeyihiin taariikh aad u dheer oo dhaqdhaqaaqa madownimada ah ayadoo aabaheed uu yahay nin aad u neceb dadka cadaanka dad badan waxay u arkaan in aabaheed uusan ka soo dhex muuqan ay tahay inay isqalaceen hal mar ayaa waxay tiri oo email ay u dirtay New York Times ayaa sheegtay in iyadii aabaheed ay raaqaadkooda u yahay mid wanaagsan laakiin sama aysan sheegin inaysan ishayn ma aysan cadaynin inkastoo la sheegay inay daris yihiin oo aysan aad u kala fogeyn oo la aaminsan yahay in meesha ay degan tahay ay ka degan tahay Washington loo yaqaan Vice Presidential Medicine haddana uusan ka fogeyn oo ilaa 2 mayl meelahaas u jiro haddana dadka qaarkood waxay ku tilmaameen in ay yar tahay inta isbooqdaan ama ay booqato aabaheed aan ku ahaa dhammaan inuu ka qayb galay dadkii diiday cadaanka oo dhan ninkii loo jeeday markan ee aad iyo aad ka u soo dadaalay ayuu xitaa ku xidhay marar kale wuxuu dhaqdhaqaaqyada dhab qayb ka ahaa Fidel Castro ayuu ku xidhay wuxuu dhowr soo jeediyay in dhaqaalaha dalka Mareykanka laga dhigo hanti wadaag wuxuuna ku tilmaamay hanti wadaagga dalka Mareykanka sababta looga dhigaya inay tahay in markii hore la isboobsiiyay wuxuu aaminsanaa afkaaro aad iyo aad u waaweyn oo ay ka mid tahay hanti wadaag waxaan u taageersanahay oo aan u doonayaa buu yiri Mareykanka lacagtiisa iyo dhaqaalihiisa waa la kala boobay dad baa markii hore wuxuu gacan qabsaday oo ay gacanta ku dhigay lacagtii iyo dhaqaalihi dadku markii maadaama aad u kala horeeyeen oo dadkii madowga ahaa ayaga lagu xamaalanayay qaarna la adoonsanayay qaarna wadooyinka lagu dhisay lacagtiina rag yeeshay dawanay hanti wadaag noqotaa dib loo baandheeya ayuu afkaar noocaas kale aaminsan ayaan dhaweeto Trump xitaa arinta uu ku eedeeyay oo wuxuu yiri haweeneydu waxay ka soo jeedaa aabaheed oo hanti wadaaga nin hanti wanaaga aaminsan oo doonaya lacagtiina inuu boobo ayay ka soo jeedaa inkastoo la sheegay in iyadii aabaheed cilaaqaad aad wanaagsan ay lahaayeen markay yareed isla markaana xitaa geeyay dalka Jamaica ay ka soo jeedo oo tusay dad badan iyadii walaasheed Maaya isla markaana uu tusay xataa heritage-ka iyo dhaqanka dadka Jamaicanka sidoo kale uu tusay dadkii la gumeystay iyo dadkii slave-ka ahaa ee sida weyn loo gumeystay ee cadaanka gumeystay iyadoo yar aadna ugu la taliyay mar walba inay madowga ku dhawaato haddana haweenadaas taam warkaas ma gelin ninkeedu waa ogtiin waa cadaan ayaduna waxay u egtahay markaasi in aysan hawa yaraatay caadifadaas aysan ku shaqeynin ama aysan qaadan ama aysan laga dhaadhicin waxaana u egtahay ayaa dadka qaarkood ay leeyihiin in Mr. Joe Biden iyo markii ay iyadu isku dhawaadeen xataa ilaa xad uusan ku farxin walow warqad yar oo hambaliya oo gacanta lagu qoray la arkay inuu mar u soo diray walow arrimahaas oo ay jiraan haddana dalka Mareykanka doorashadiisu waxay u egtahay inay tahay tii ugu adkeyd ugu kulleed uguna weyneed uguna saameynta iyo markaasi xaladda badneed dhinaca kale marka la fiiriyo wararka ugu dambeeya doorashada dalka Mareykanka dadka qaarkood waxay ku tilmaameen inay noqon karto doorashadii ugu yaabka badneed ee ugu adkeyd ee dhexmarta nin iyo naag 250 sanadood ugu dambeeyay ee ay markaasi isweydaarsanayeen dadka madaxda dalka Mareykanka ay talada isku wareejinayeen yani tan oo lagu tilmaamay inay timid aad u kulul xataa doorashadii 2016 banaanka ayaa la dhigay waayo doorashada ayaa gabigeedu watan way ka qaab daran tahay tii hore madaxweyne fadhiyay oo sitting president ayaa u muuqday in loo diiday inuu tartamo oo xisbigiisa ay ka soo horjeesteen kadib ay ku khasbeen in uu joojiyo doorashada si aan Trump uusan u guuleysan balse hadeerto Yahuba Trump uusan guuleysan yaase huba in ay arintu saas noqon doonto haweeneydu hadalkii ugu dambeeyay ee dadka shacabka u jeedisay waxay ku tiri waxaan idin soo dirayaa fariin toos ka idin soo diraya waxa weeye ay codkina idin weydiisanaya waxay tiri gabi ahaanba waxaan rabaa inaan idin adeegsado hal codsi oo ah iyo codaya waxay tiri haddaad iyo codaysaan waxaad helaysaan dalka Mareykanka oo barwaaqa waxaad helaysaan dalka Mareykanka la wada leeyahay si toos ah ayay saas uga codsatay waxay tiri qof kasta oo Mareykan gobolka doonta way joog meesha doonta ka soo jeed halka doonta ka imow background-ka doonta lahaw midabka doonta lahaw diinta doonta amsanow iyo coday ay weydiisatay Trump laakiinse wuxuu u ekaa isaguna nin sidaas iyo si ka daran sameeyay wuxuu u sheegay dadka muslimiinta markii uu la kulmay in uu yahay nin nabadeed isla markaana wuxuu sheegay in wax kasto dhaca uu nabad ka shaqeeyo doono anu wax ka shaqeeyo doona nabad baan idigu ogti waxaan noqon doonaa nin nabad ka shaqeeya oo dagaalada joojiya ayuu si guud u yiri laakiin ilaa hadeerta dagaal uu taabtay inuu jooji doono waa dagaalka wadanka Lebanon oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid aan dan aysan dhan ku jirin haddaba waxaa jira qodob kale oo aan kaga hadlay arrimaha weyn ee ka mid ka tahay labada qof maxay dadka u balan qaadeen waa maxay saameynta gaarka ah ee doorashada ay ku leedahay arintaasi waase maxay waxyaalaha soo jiidashada leh ee dadka Mareykanku marka ugu dambaysa qofkay raaci doonaan waa sidee halkiisa aadi doonaan halkeebayse u dareeri doonaan yaase Mareykanka codkiisa ugu badan maamuli doona hagaag inta ku joojiyo doorashada